iftiinkii nolosha aan ka lahay mar qura ah ayuu burburay. Dhaawac culus ayaana qalbigayga soo gaaray. Leerkii dunida aan ka rajeynayay waa uu baxay. Garbahaygana waxa ay noqdeen kuwo cidla ah. Markii aan maqlay saaxiibtay Nimco oo bas saarneed kadibna rasaas lagu furay, kooxo burcad ah oo aan asxaan lahayn ayaana sidaas sameeyeen. Waxayna doonayeen in saaxiibtay Nimco ay dhacaan. qadar alla ayaa dhacay. Waa qiso jacayl oo aad u xanuun badan, waxaana ka daawanaysiin barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24. saaxiibka sharafta leh waxaan ka codsanayaa intaan gudagelin muuqaalkan in saaxiibada u share gareyso si saaxiibo badan u helno saaxiib adigoo kala. waxay ku bilaabanaysaa qisada sida tan. Kamaal waxa uu kamid ahaa dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxa uu Kamaal mar walba jeclaa erayada jacaylka kuwooda naxariista badan inuu maqlo. Lamaanuhu dunida marka ay joogaan waxay isdhaafsadaan erayo jacayl oo aad u qurux badan. farxaddu reereyntu cidna gooni uma lahan. bini'aadamku waa ay kala duwan yihiin. qof baa maalinkiisa waxa ay ku soo martaa jawi qurux badan, qof baa maalinkiisa waxay ku soo martaa jawi murugaysan. murugadu waxa ay keentaa noloshu waxa ay keentaa mid murugo ah ama mid farxad leh. Kamaal iyo Nimco waxay ahaayeen laba qof oo aad isku jecel. waxaa jacaylkooda uu gaaray xaafadda ama deegaanka markaas ay joogeen in looga sheekaysto. waxay ahaayeen laba qof oo mar walba codkooda in si joogto ah in ay isku dhaafsadaan jeclahay. habeen iyo dharaar walba waxay ahaayeen kuwo codkooda isdhaafsado. habeenkii markay seexanayaan codka ugu dambeeya ayay jeclaayeen inay ismaqashiyaan. subaxii markay soo kacayaan sidoo kale waxay jeclaayeen codkiisa qof walba qofka kale inuu ku soo tooso. waxaa labadooda ku dhaxeeyay jacayl aad u miisaan weyn. waxay ahaayeen laba qof oo nolosha rajo, hiigsi, himilo qurxoon ka lahaay. waxay jacaylkooda ka soo bilaabeen ayagoo aad u yaryar. xaaladda qaangaarka xataa markaas maysan gaarin oo dareen jacayl kuma aysan jirin. waa ay weynaadeen jacaylkiina qalbigooda ayuu ku koray. waxaa dhacay qadar alle. Nimco iyo Kamaal waxay ku heshiiyeen guur qurux badan. kadib maxaa dhici doono? ruuxa jeceshahay dunida markaa weyso murugay uur ku taalla ayaa ku bilaabayso. noloshu rajada iyo himilada qof walba ka leeyahay waxay tahay lamaanaha dunida aan ku jeclaada mar qura inuu helo. geeyadu iyo wiilku markay isjecel yihiin waxay jecel yihiin mar qura asaagood inay ka hormaraan guri qurux badan ay wada dhistaan. qadar alle iyo geeridu kulama tashanayso, wax walbana xagga alle ayay ku qoran yihiin. Nimco waxay saarneed gaari bas ah. waxa ay rajeynaysay inay magaalada ka soo adeegato. waqti qurux badan ayayna soo qaadatay. kadib waxaa dhacay Nimco gabar aad u qurux badan ayay ahayd. inkastoo bini'aadankuna isku mid ahayn, raggu qaarna ay ku jiraan kuwa asxaan darayaal. kooxo burcad ah ayaa Nimco baski ee saarneed rasaas ku furay, ayaga oo markaas doonaya wax yar oo Nimco haysatay inay ka dhacaan. Nimco rasaastii markii lagu furay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaa la geeyey. kadib qoyskeedii ayaa lagu wargeliyay in Nimco rasaas lagu furay. qoyskii isbitaalka ayay ku tageen. gabadhiina waxay ku jirtaa xaalad aad u daran. markii isbitaalkii qoyskii ay tageen, Kamaal 2 saacadood kadib ayaa fariin loo diray. Kamaal wuu imaaday, waa uu arkay, wax uu sameeyay ayuu aqoon fikir ayuuna meel la fadhiistay. ooyintu waxa ay tahay mid qalbiga uu ka ooynayo iyo mid ooyinta waadixa, taasi oo cadeynayso naxariista iyo jacaylka uu hayo gabadha Nimco. Kamaal xaaladiisi oo sidaas ah oo qalbiga uu ka ooynayo oo wuxuu sameeyay oo aqoole. Nimcana waxay u dhaxaysaa geeri iyo nolol. saacadi kadib waxaa dhacday in Nimco ay geeriyooto, adduunkana ay ka tagto. Kamaal waa uu miir daboolmay. hadalkii ayaa laga waayay. wadnaha ayaana saa'id u garaacmay. Kamaal wax uu sameeyay ayuu aqoon waayay. dhammaan eheladii meesha joogay qof walba ooyin ayuu jabsaday. qof walbana dareen kale ayuu galay, kaasoo ah dareenkii ugu weynaay.
qof walba nimco wuu jeclaay laakiin nimco waxaa u imaaday geeri gurigeedii dhabta ahaa ayaana loo gelbiyey markii xaaladdu sidaas ahayd saaxiibadii Kamaal waxa ay go'aansadeen in Kamaal ay dejiyaan oo xaaladiisa si kale loo bedelo Kamaal waxaa la isku dayay aaska xataa in laga reebo oo iska joogo laakiin waa uu diiday aaska ayuuna ka qayb galay saaxiibadiis waxay ilaalinayeen qalbigiisa inay dejiyaan laakiin waa uu ka diiday qisadani jacaylka waa mid xanuun badan waxayna turjumaysaa marka naf aad jeceshahay aaweyso in aad tahay ruux dhintoo kale ama ruux waalan ama ruux dunida magacaan ku lahayn ilaa jacayl waa loo dhintaa haddaad jacayl ku aaminsaneen waxaa tahay qof jacaylka sidiisa qalbigiisa oo ku weyneen Kamaal wuxuu kaaga baahan yahay talo haddii aad haysato ruux ku jecel dhowr oo qalbigiisa daryeel waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal waxaa ka daawanaysiin barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24 inta ku kulmi doono qiso noocan oo kala saaxiibka sharafta lahow waad ku mahadsantahay dhammaadka muuqaalka haddii nala joogtay